بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما بعد casharkan waa casharkeennii labaad ee ku saabsanaa qofka muslimka ah qofka yacni gaalka ahaa muxuu kusoo islaamaa maxaa lagu islaamaa xadiidkii koowaad bukhaari ayaan soo marnay iyo sharaxaadii uu ka bixiyey ibnu cabdilbar alxaafid abu cumar yuusuf ibnu cabdilbar oo culimada muslimiinta la yaqaano ka mid ah weliba axaadiidta iyo tafsiirka iyo xadiidka iyo taariikhda iyo aada loogu yaqaano xaafidulmaqrib la dhihi jiray. xadiidka labaad wuxuu yahay alimaamu albukhaari iyo muslim waxay wariyeen min xadiidi lmiqdaad bni camrin ilkindiy annahu qaala lirasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku yidhi ara-ayta in laqiitu rajula min alkufaari faqtatalnaa bal ii sheeg haddii aan la kulmo nin gaalada ka mid ah oon dagaalanno gaal buu ahaa dagaal ayaa kala dhexeeyey waa dagaalameynay faqtatalnaa aan dagaalanno fadaraba ixdaa yadaya bisayfi faqatacahaa labadeyda gacmood mid kamida ou seef la dhaco ou ku dhufto ou gooyo huma laada minii bishajaratin dabadeedna markaa uu iiga gabbado geed iiga gambado faqaala markaa uu yidhaahdo aslamtu lilaah allaan isu dhiibay oon u hoggaansamay aqtuluhu yaa rasuula allah ma dilaa bacda an qaalahaa markuu yidhi kadib hadalkaa ma dilaya faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi laa taqtulhu ha dilin faqaala yaa rasuula allah inahu qataca ixdaa yadaya labadeeda gacmood midood ayuu jaray huma qaala dalika bacda maa qatacahaa hadalkaas buu yidhi markuu gooyey kadib faqaala rasuulu llahi sal l slam laa taqtulhu nebigu wuxuu yidhi ha dilin fain qataltahu haddaad dishid markuu warkaa yidhi kadib fainahu bimansilatika isaga adiga darajadii aad taagnayd yacni meeshii aada joogtay buu isagu ahaanayaa qabla an taqtulahu intaadan dilin ka hor adiga meeshii aad taagnayd buu taagnaanayaa yani waa maxay marka adiga inta aadan dilin ka hor dhiiggaagu macsuum ayuu ahaayo in la daadiyaa xaaraanay ahayd isagu markaad adiga disho sidaasuu soo istaagaa wa inaka bimansilatihi adigana waxaad tegaysaa meeshii isaga uu joogay qabla an yaquula intuunan dhihin kelimatahu alatii qaal kelmadiisii uu yidhi yani adigana booskiisii hore ayaa tegay intuunan kelmadda ku qowlin booskiisii hore maxay ahayd in dhiiggiisu bannaanaa yacni macnuhu waxay tahay adiga waa lagu qisaasaa marka oo dhiiggaagii macsuumnimadii waa ka baxayaayo asaa laguu qisaasayaa isaga marka meeshii uu taagnaa baad istaagaysaa qabla kelmaddaa intaanu dhihin ayaad adigu istaagaysaa isaguna wuxuu taagnaanayaa kelmaddaa markuu yidhi kadib booskii adiga aad taagnayd intaada dilin oo waa maxay adiga in lagu dilaa xaaraanay ahayd markaas ayb ee maahan gaal baad noqonaysaa ma laga wado sidan tafsiirka culimada aan ka arki doonno hadda marka xadiidkan aslamtu lilaahi buu ayuu yidhi intuu gacantii iga jaray geed ku gabaday buu aslamtu lilaahi yidhi riwaaye marka imaam axmed baa jirto wa fii riwaayatin liaxmeda xadiidka raqamkiisu musnadka ku jiray 23,811 wuxuu ahaa huma qaala laa ilaaha ila allahu yidhi yani intuu gacanteydii jaray ayuu geed ku gambaday markaasuu laa ilaha ila allahu yidhi waa caddahay marka tan wakada fi sharxi macaani اlaathaar liطaxaawiy imaamu abu jacfar iطaxaawi sharxu macaani laathaarkiisana sidaasuu ku wariyey taxta baabkan maa yakunu rajulu bihi musliman baab buu baabeeyo wuxuu yihi qofku muxuu muslim ku noqonaa caynina nuqabul afkaarka oo sharxu macaani laathaarka sharax usii ah waxa uu yidhi isagoo baabka tarjamada fasirayo yacnii maa yakuunu bihi gayru lmuslimi musliman qofka aan muslimka ahayn waxa uu muslimka ku noqonayo ayaa loo jeedaa ayuu yihi qof aan awal muslim ahaa jirin muxuu muslim ku noqonaa baabkaas uu baabeeyey xadiidkan miqdaad buu keenay meesha riwaayadii bukhaari iyo muslim aslamtu lilaahidiina
booskeedii laa ilaaha ila allahu buu sheegay sida axmed buu u wariyey imaam axmed. ayb qaala arabiic bnu sulaymaan, arabiic bnu sulaymaan almuraadi waa ardaygii shaafici, kutubaha shaaficina ka wariyey. wuxuu yihi yacnii anahu bimansilatika, ninkaani darajadaadu imaanayaa miqdaadow booskaagii. waa maxa marka xaraamu dami, dhiiggiisu inuu xaaraam yahay waay, ilaa adigu dhiiggaaga xaaraanu ahaaye. wa anta adigana in qataltahu haddaad dishid bimansilatihi baad tegaysaa, kunta waxaad ahaanaysaa mubaaxa dami, mid dhiiggiisu bannaan yahay, qabla an yaquula aladii qaal, hadalkii uu yiri intaanu dhihin. sidaasaa ku taal. wa qaala alxaafid abu xaatim ibnu xibaan albustiyu, ibnu xibaan albusti kitaabkiisa saxiixa, saxiix ibn xibaan la yidhaha, ee isagu alanwaacu wataqaasiim uu u bixiyey. xadiidka raqamkiisa 164 uu yahay tarqiimka oo alixsaan bitartiib saxiix ibn xibaan ibni balbaan tartiibkiisa. xadiidka 164 raqamkiisa uu yahay waa xadiidkaani. wuxuu yihi yuriidu, wuxuu u jeedaa nebiga annaka tuqtalu qawadan, niyo adiga waa lagu dilayaa, qisaasaa lagu dilaa. liannahu kaana isagu oo wuxuu ahaa qabla an aslama, intuunan islaamin xalaalo demi buu ahaa. adigana hadda waxaad noqonaya mid dhiiggiisu xalaal yahay oo qisaas ahaanaad xalaal dhiiggaaga u noqona. waayo qof waxaad dishay muslimnimadii ku qowlay oo la yimid. wa idaa qataltahu haddii aad dishid bacda islaamihi, markuu islaamay kadib, sirta adiga waxaad ahaanaysaa bixaalatin xaalad, xaaladda oo tuqtalu midlahu qawadan bihi, xaalad markaa iyadoo isagoo kale yacni lagu dilayo qisaas ahaan. laa ana qatla almuslimi, ee ma ahan qofka muslimkaa dilkiisu yuujibu kufran, inuu gaalnimo waajibsanayo, yukhriju min almilla, kufrigaa oo qofka diinta ka saaray, sidaa ma ah macnuhu. gaal baad noqonee maahane dhiiggaaga bannaanaanayo sidii isaga u bannaanaa dhiiggiisa. adiga dhiiggaagana wuxuu u bannaanaanayaa ninkan aad dishaa lagu qisaasaa. qisaas hadday meeshii timid marka maxaa kaaga muuqdo? ninkan islaamnimadiisa in markaa axkaamta islaamnimada in lagu dareeriyey. mar haddii uu yihi laa ilaaha ila allaahudii uu yihi baa muslimnimadiisii lagu dareeriyey. oo haddaad dishay markuu laa ilaha illa allahu yihi kadib qof muslimaad dishay, sidaasaa marka lagu qisaasayaa adiga. ibnu mandah xadiidkan kitaabkiisa kitaabuliimaan la yihaha, alxaafid moxamed ibn isxaaq ibni mandah xadiidkan ayuu keenay. taxta wuxuu ku keenay baabka sidaan ah: dikru maa yadullu calaa ana qowla laa ilaaha ila allah yuujibu sma alislaami wa yuxarimu maala qaa'iliha wa damahu. saanuu baabeeyey. wuxuu yihi waa yani halkan marka wuxuu leeyahay wuxuu u baabeeyey waxa tusayo qofka yiraahdo laa ilaaha ila allahu, yani yani laa ilaha illa allah oo lagu dhawaaqaa islaamnimo inay waajibsanayso daliilkeeda. qofka yiraahdana maalkiisa iyo naftiisu inay xaaraan noqonayso. baabkaas uu baabeeyey wuxuu keenay xadiidkan oo miqdaad oo hadda aan akhriyey. intaa waxaan u keenaa culimada taraajimtooda macnaha xadiidka laga qaadanayaa laga fahmaa. khulaasaduna waxay tahay ninkaani gaal buu ahaa, ninkaanuu gacanta ka gooyey, waa dagaalamayeen, geed buu galay, laa ilaaha illa allahu buu yidhi. qofkii muslimka ah baa nebigu wuxuu leeyahay haddaad disho adigu waxaad noqonaysaa booskiisa hore intuunan kelmaddaa dhihin. oo booskiisii hore muxuu ahaa? dhiiggiisaa bannaanaa, adiga waa lagu qisaasa, adna hadda dhiiggaagaa bannaanaanayo. meeshaa marka axkaamta islaamnimada inay ku sugnaanayso qowlka laa ilaaha illa allahu uu qofku dhahayo oo shahaadateynkii ou la imaanayo. wa qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya wuxuu yihi, shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa minhaaju sunnaha juska 453 xadiidkan miqdaad marku sheegay kan a kadib iyo xadiidka soo socdo qisada usaama, wuxuu yihi faqad habata ana haa-ulaa'i qataluu qowma muslimiina, waxaa sugnaaday buu yihi kuwaani inay dileen dad muslimiin ah, laa yaxilu qatluhum dilkoodu ounan xalaal ahayn.
wamaca haadaa iyadoo sidaa ay tahay falam yaqtulhum الnabiyu sal ll slam nebigu ma dilin qisada usaamo weliba walaa damina almaqtuula biqawadin walaa diyatin walaa kafaaratin ninkii la dilayna diyo iyo yacnii qisaas iyo midna uma damaanin nebiga iyo kafaaro. sababta waa maxay aan loo dilin? waa maxay sababta aan markaa diyadii loo siin waayey? lianna alqaatila wuxuu yihi kan wax dilay kaana muta-awilan, wuxuu wax ku dilay waxay ahayd ta'wiil. wa hada qowlu akhari اlculamaa'i waayuu yihi kashaaficiyi waaxmed wagayrihima. yani haddaad dhihi lahayd usaamo nin laa ilaha illa allahu yiri buu dilay, maxaa loo dili waayey isaga? muta-awilow ahaa, waxbuu marka ismoodsiiyey ou si qalada isku moodsiiyey, waana la canaantay mana la dilin. culimada qaarkood marka ta'wiilkaas ayaa lagu dhaafay bay leeyihiin. wa min annaasi man yaquulu, dadka waxaa ka mida kuwa dhahayo bal kaanuu aslamuu, way islaameen, walam yuhaajiruu. dadkan la haystaa meesha horta waxaan ay ka dhacayaan waa daarulxarbi. ayagii waa islaameen, daarulxarbi bay ku dhex islaameen, mana soo hijroonin. mar hadday daarulxarbi ku islaameen aynana soo hijroonin, fahabatat fii xaqihim alcismatu almu'ahimatu duuna almudamina. waxaa u sugnaatay marka in dhiigoodu cismo oo dhiigooda uu badbaadayo oo qofkii dhiigooda daadiyo ou dembi ku galayo, laakiin uma sugnaanin duuna almudamina cismadii lagu damaano qaadayey oo markaa yacni qofkii wax laga galay ee saa lagu dilay diyo in la siiyo ama qisaas la galo iyo cismadii noocaas ahayd waa waayeen ayaga. nacam, maxay ku waayeen? ma soo hijroonin ayaga. nacam, bimansilati nisaa'i ahli lxarbi wa sibyaanihim ayaa laga yeelay oo kale, kuwaaba dilkooda ma banaanayn, kamaa yaquuluhu abu xaniifata wa bacdu lmaalikiya. yacni ishkaalkaas ninkii keeni lahaana jawaabteedu waa taama ta'wiilkaa looga daayay sida shaafici iyo keyrkii ay qabaan, amase waxaa weeyaanba nimankan iyagaaba qalad galay oo hadday soo islaameen daarulxarbi maxaa fadhiisiye, maxay usoo hijroon waayeen? aayaddii qur-aankana waaba ahaydba markaa fain kaana min qowmin caduwin lakum wa huwa mu'minun fataxriiru raqabatin. diyo lama sheegin. hadduu mu'min yahay isaga, sida ay mufasiriin badan fasirayaan, qolada ou ka dhashayna ay gaala yihiin, fain kaana min qowmin caduwin lakum wa huwa mu'minun, aayaddaaba sheegayso maahanba tafsiir. hadduu qolo cadow idiin ah xaggooda ka ahaaday isaguna ou mu'min yahay, marka waxaa la yihi fataxriiru raqaba. diyo ma la sheegin. waa kafaaro u gudanaa ninkan mu'minka maadaama uu dilay, waa kafaaro gudanaa, addoonu xoreyna ama 2 bilooduu soomayaa. aawey diyadii marka xaggay ka baxday? diyadii marka waxay leeyihiin waxay ka baxday ninkaani hijradii laga rabay inuu meesha kasoo tago ayuu kasoo tegi waayey. isaga marka dhiiggiisu macsuum ha ahaado oo ha lagu dambaabo, laakiin diyo iyo wax lamida ma helayo. diyada wuxuu u weynayaa kownuhu uunan soo hijroonin. maa lakum min walaayatihim min shay. waa aayaddii kalena waatay sidaa ahayd, kuwa aan markaas soo hijroonin iyago xaalkoodu sidaas. ayb, oo aayaddii marka suuraة الأnfaal in اladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fi sabiili اllahi wاladiina aawow wanasaruu ulaa'ika bacduhum أwliyaau bacd wاladiina aamanuu walam yuhaajiruu maa lakum min walaayatihim min shay. marka taas iyo aayadahaasa u marqaati kacayo qowlka dambe. sababtaas waaye waxa diyada baajiye islaam ma ahano waa gaal ma aha macnaheedu. nacam, hadduu islaam nimadiisa la sugay maxaa diyo loo sii waayey? waa jawaabteeda waa taas, waa lagaga jawaabay. imaa bita'wiil wa imaa inuu isagiiba taqsiir uu sameeyeyo ardulxarbi uu dhex joogay oo uunan soo hijroonin oo nafsadiisii uu ku gabood falay isaga. ayb, meeshaas marka macnahaas ayaa ku jira iyadana. cayni, alimaam alcayniyu badrudiin alcayni raximah اllah, kitaabkiisa nuqab اlafkaar fi tanqiixi mabaani اlakhbaar fi sharxi macaani اlaathaar, juska 12 176 safxada ah, wuxuu leeyahay wayustafaadu min alxadiidi, xadiidka waxaa laga faa'iideysanaa
يعني in talafada bikalimati الtawxiidi in talafada hadduu ku dhawaaqo qofka bikalimati الtawxiidi kelimada tawxiidka yuxkamu biislaamihi islaamnimadiisa waa loo xukumaa laakiinse hada fi xaqi اlmushriki waa mushriga aladii yanfii saanica alcaalam ilaah ma jira kan dhahayo ow amase yactarifu saanica alla khaaliqa waa ictiraafsan yahay walaakinahu yushriku laakiin cibaadadii ayuu ilaahay keyrkii la wadaajinaa wa can qariibin yaأti اlkalaamu fiihi mustaqsan meel dhow mar dhowowna imaanayaa buu leeyahay hadalkiisii oo dham oo aada loo reed raacay oo dhamaystiran. ayb marka haddii kalimatulislaam kalimatu tawxiid uu ku dhawaaqo islaamnimadiisaa la xukumaa ayuu leeyahay feeri waa nas binasi baa loogu xukumaa laakiin waa qofka mushriga ahoo ama aan ilaahayba rumaysnayn ama waa rumaysan yaha laakiin cibaadada uma ogola ama keyrkiisu la caabudaa ka noocaasa laa ilaha illa allahu haddou dhaho axkaam islaam waa lagu dureerin karaa sida imaad doontuu leeyahay. ayb faahfaahintana marka inaga lafteena gadaalaan u dhigaynaa arrintaa ku saabsan. intaan oo dhan wuxuu kutusayaa marka hada yani arrintan o dhan waxay kutusaysaa qofka mushriga ah ee wathaniga ah axkaamtii islaamnimada iyo muslimnimada loogu sugayaa binutqi bishahaadateyn inuu shahaadateynki ku dhawaaqo diyadii in laga tuurana oo aan marka haddii la dilo isagoo meel daarulxarbi dhexdiisa gaal la moodayo intuu islaamo kadib lays yiraahdo armow ku gambanayaa sidaas lagu dilo oo diyadiisu inay dhacdana ma keenayso inuusa islaam soo gelin saan hore u sheegay. ayb xadiidka saddexaad waa qisatu usaama saxiixu muslimka waxaa ku sugan oo imaam muslim iyo keyrkii ay wariyeen usaamo markuu dilay ninkii marku laa ilaaha ila allahu yidhi kadib nebigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yiri markii la su-aalayna uu yidhi inamaa qaalahaa mutacawidan rasuul allah waa ku gembanayay ereygan in lagu dhaafou rabay markaa nebigu wuxuu ku yidhi afalaa shaqaqta can qalbihi qalbigiisa ma yani maxaad u dhambali weysay qalbigiisa maa dhambashid ood jeexdid xataa taclama aqaalahaa am laa saad u ogaatid bal inuu yidhi iyo in kale yani adiga qalbigiisii ma jeexi kartid taad jeexda kama ogaa kartid mana ku qancin warkii afkiisii ka soo baxay waa tacdisay waay marka qaladaad samaysay. waqad yani alimaam abu daawuudna qisada usaama uu wariyey wuxuu ku wariyey taxta baab taraajimta culummada mar walba waa la fiiriyaa baabka ah baabun calaa maa yuqaatalu lmushrikuuna gaalada maxaa lagula dagaalamaa xadiidkii abu hureyra u keena umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaha illa allah kanuu wariyey kadibna mushrikiinta maxaa lagula dagaalamayaa inay laa ilaha illa allahu yihaahdaan oy qiraan shahaadateyinkii la imaadaan ayaa lagula dagaalamaya saasuu marka ka dhigay. alimaamu alkhaaabi macaalimu sunanka xadiidkan markuu sharxay kan iyo fii qowlihi hallaa shaqaqta can qalbihi wuxuu yihi daliilu calaa ana alxukma inamaa yajri cala aldaahir waxay daliil u tahay xadiidkan uu daliil u yahay xukunku wuxuu soconayaa uu ku dureerayaa sida daahirka annaga noo muuqato wa ana saraa'ira sirtuna mawkuulatun ila llahi subxaanahu waa mid ilaahay loo xil saaray. alimaamu alkhaaabi xadiidkaas sidaas u macneeyey usaama waxaa badan dadka qaar in la yidhaha adilada wax yar in looga dhigo oo la yidhaha xadiid usaamay keenaan miqdaaday la soo ordayaan umirtu an uqaatila annaasu kuula imaanaa waa lagula imaanaa xadiidtii nebiga waay sal l slam ninka caamadaana maahan in dhegtiisa lagu shuboo la yidhaahdo waxaasay kuu sheegi doonaan iyo saasay yidhaahdaan iyo saasay yidhaahdaan oo aan laga jawaabaynin wax macnaha ma sameynaysa qodobka marka yacni fahamkii culummaduna waa taasa marka waa tilmaamaynaayo waan sheegeynaa ogowna waxa aan ka hadlayna hadda annagu waxaan joognaa qofku muxuu muslim ku noqdaa taasaan joognaa ka hadli mayno mana taagnin waqtigan hadda mas'aladeeda qofkii ku dhaco wax islaamka ka buriya ka waran
ma jooga taas hadda. waayo marka aan ka hadlayno islaamkii waa ka buray horta waa u sugnaadayaa ka horeyso. dadkan marka islaamnimadooda horta ma sugaysaan? markii islaamnimadooda la sugo ayaa waxaa laga doodi karaa war qofkan waa ka buray islaamnimadii, waxayna uga burtay waxaa waana la yaqaan waxyaabaha islaamnimada ay ku burto aqwaal iyo afcaal iyo ictiqaad intaba waa leedahay. soo ma garanin. qaala alimaamu الnawawi waxa uu yihi fii sharxi muslim xadiidka usaamo markuu sharxaye, wa macnaahu xadiidka macnihiisa wuxuu yahay annaka adiga inamaa kulifta bilcamali biاdaahir, waxaa lagugu kalifay sida muuqato inaad ku camal fasho oo adiga kuu muuqato, wamaa yandiqu bihi lisaanu iyo waxa carabka uu ku dhawaaqayo. wa ama alqalbu qalbigu falaysa laka dariiqu ilaa macrifati maa fiihi, adiga qalbiga dariiq aad inaad waxa ku jiro ogaato u marto malihid. fa ankara calayhi wuxuu nebiga ku inkiray usaama imtinaacahu ka joogsigiisa ou ka joogsaday min alcamali inuu ku camal falo bimaa dahara bilisaani waxa carabka ka daahiray. yacni ka joogsiga ou ka joogsaday inuu ku camal falo qofkaa wixii carabkiisa kasoo muuqdayaa lagu canaantay, oo marka warkaas ma yeelinoo waa dilay marka. nacam. wa qaala wuxuuna ku yihi afalaa shaqaqta can qalbihi, qalbigiisa maxaa u dhambali weysay? litandura bal aada eegtid ood ogaatid hal qaala hal qalbigu bal inuu yidhi wactaqadahaa inuu caqiideeyey wa kaanat fiihi inay ku sugnayd am lam takun fiihi ama inaynan ku sugnayn, bal jarad cala lisaani carabka un inay isaga soo dareertay oo qalbigaba aynan jirin, faxasb oo carabka keliya un inay ka timid, ta qalbiga jeexda maa ogaatid. yacni wa anta adiguna lasta biqaadirin calaa haadaa ma awoodid kan, faqtasir cala lisaani carabka ku gaabso faxasb oo keliya. yacni walaa tatlub gayrahu, wax kale ha dalbin. ninkan aadan aqoonin adiga ee masaajidkii ka addimayay ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah dhahayo, inaad tiraahdid beenuu sheegayaa islaamnimadiisana ma jirto aad tiraahdid aaday qalad u tahay. nacam. waayo annaga waxaana la raaciyay qofkan wax afkiisa ka soo baxaya iyo ficilka nooga muuqdo. haddii aada leedahay war ninkan sidaanuu yidhi laakiin waxaanuu ku jiraa naaqid ou ku dhacay, naaqidkaa la fiirinaa markaas. wax islaamka buriye ma yihiin mase ma aha? hadday wax islaamka buriyo ay noqdaan xaal kale u galaa. nacam. riddo iyo baabkeed iyo nacam. innaga hadda waxaan ka hadlayna horta islaamnimadii ma sugan tahay? qofou arkaa ounan aqoonin waxba ku aqoonin masaajid ka addimaya shahaadateynkaasi islaamnimo ugu qiri maayo. nacam. maxaad ugu qiraysaa islaamnimada inuu kooxdaas kusoo biiro? wax kale ma aha marka. nacam. ilaa ninaadan adiga naaqid inaad ku aragta iskaba dhaafe maba taqaanidba ninkan, aqoon uma lihid, maantaa kugu horeyso isagoo shahaadanayaad maqlaysaa, tukanayaad arkaysaa. yani inaad tiraahdid maya la yeeli maayo islaamnimadiisa, maxaa lagu yeela hadda islaamnimada marka waa yahay? ayb xataa haddii la yiraahdo baraa kuwan gaalada uusan baraa ka qaadanin yaa kuu sheegay adiga? nacam. maba taqaanidba ninkaani. nacam. yani aniga qofkaanan aqoonin muslim ma aha haddaad tiraahdid arrintaasi marka arrin qolada iska leh waa sheegi doonaa oo sidaas dhahdo. alxaafid ibnu xajarna wuxuu yihi wa fiihi daliilun, xadiidkan wuxuu daliil u yahay xadiidka usaama calaa taratubi alaxkaami, axkaamta inay ka ratibmayso cala alasbaabi aldaahirati, asbaabta muuqato, duuna albaatinati waxa qarsoonsa maya. intaana xadiidkii saddexaad yaan uga baxnay. hada aakhiruhu wallahu aclam, wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih.